أنا محمد محمد شبلي waxaan halkan rabaa inaan ka jeediyo kelimad la xiriirta hadalkii hore ka iri ninkii ku sheegay sawir meesha yilay nabiga weeye sallallahu alayhi wa sallam oo ay dib ka soo baxday erayo kamid ah inay bulshada qaar kamid ah dhibsadeen ama si qalad u fahmeen ama in qalluucisay bay ku jirto marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan culimadii iyo maamuladii ka qayb qaatay ninkaas sidii loo raadin lahaa ama xukunkiisa dadka looga digi lahaa ee loogu sheegi lahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in sidaas oo kaleeto markasta oo diinta wax loogu dhimo ama nabiga Allah falagaaday subhanahu wa taala inay sida ugu gurmadaan dadku aad baan u dhiirigelinaynaa qodobka labaad waxaan rabaa inaan iraado qadiyada erayga waxaan filayaa la dhibsaday oo erayga jareer baan filayaa anu qabiilna kama hadlaynin qowmiyad gaarana ma tilmaamaynin sawir meel yaalaan tilmaamay sida uu yahay sawir meel yaala sida uu yahay marka la tilmaamana cid tilmaanta leh dunida qowmiyadaheeda kala duwan kala deegaan iyo midab duwan mid ka soo noqon kara saan wax kadib tilmaami doono waxaan rabaa markii intaan faahfaahinta gelin aan hordhac u yiraahdo hadday dadka qaarkii oo bulshada iyo dadka walaalaha Soomaaliyeed kamidihii si qalad u fahmeen cidii ka soo qalluucisay kolba danbay ka leedahay dadka sida qaladka u fahmay waxaan rabaa inaan hormariyo marba haday yiraahdeen hadalkaagi baanu dhibsanay raali gelin inaan hormariyo arada raali ahada talabaadna aan cadeeyo sheego in aanan reerna ka hadlaynin qabiilna ka hadlaynin qowmiyadna ka hadlaynin laakiin qof sawirkiisa la soo bandhigay sawirkan sida uu og yahay inaysan ku habooneen nabiga sallallahu alayhi wasallam aan uga jeeday erayga marka la yiraahdo Ameerika hadii la yiraahdo iyadoo qof tilmaantii laga hadlayo ama midabkiisa la sheego ama muuqaal wajigiisa la sheego ama nooca timihiisa la sheego ma noqoto ay hadday munaasabad wax jiro xaqiiqa laga hadlayo ay tahay waxaan rabaa nabiga naxariis salaam inaad xasuusataan fi sahih al-bukhari wa muslim hadith kana radiyallahu anhu warḍaahu wuxuu marka nabiga uu tilmaamayay lam yakun bil ja'd ma timaadkay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii nabiga lagu tilmaamay bukhari muslim wariya nabiga ma timaadkayn ma aha in dad kale wax loo dhimay ama timaaday gaaceeba la yiri laakiin waxa la tilmaamay sida nabigu ahaa inay sida ahay sallallahu alayhi wasallam waxaa markii ama riyaal lagu arkaa ama la tilmaamayo aan tilmaantii la leexin markii laga sheekeenayo wax sida ay u jiraan iyo waxa ay keeni karaan wax gaar ama wax guud laga hadlayo ma keento cidna in la dhaliilay nabigana sallallahu alayhi wasallam fi hadith Abi Musa al-Ash'ari Bukhari Muslim wariyeen wuxuu yiri mathalu al-jalis as-salih wal-jalis as-su'i ka hamil al-misk wa nafikh al-kir qofka qof wanaagsan la fariista iyo qofka qof xun la saaxiiba oo la fariistay waxay la mid yihiin qof la fariistay qof cadar la iyo qof la fariistay qof wax buufinayo birta dadkii garaacayay buufinka kan udgoon baad keeni ama waad ka gadan ama uba ku siin halka midkan kale ama dambaabur iyo dab kaaga soo duuli ama qiiq iyo wax kaaga soo bixi hadii qaydi maskax jiran lagu dhageysto waxa la dhihi karaa nabigu xirfad iyo qabaa'il bucay mana waana joogay naga 96 97 bay ahayd wala man joognay Sheekh Abdi Wali yaa noogu yimid saaxiibka xun iyo saaxiibka fiican ka hadal bal xadiidka soo qaaday dad baa dhibsaday oo yiri annaga ama qowmiyad ama xirfad baa la caaya waxa maalinka joogay Allah naxariisto professor Ahmed Shakir Bootaan saa ka istaagay oo yiri meesha war markii wax la tilmaamayo ma aha in dad wax loo dhimayo ama la caaya ma marka nabiga alayhi salaam markuu ka hadlay cidii madaxa in laga dambeeyo ama ku qanacsanaw ama ku qanacsanaanin ama bini aadamku waxay isku qiimeeyeen kamaalka ee sharafta ah yeesho ama waxyaabo badan ku dhaliilo kulli marba haduu madaxa noqdo kala dambeyn bay leedahay xadiis Anas fi sahih al-Bukhari wuxuu yiri isma'u wa ati'u maqala oo hogaansama ay inta amara calaykum madaxa idin noqdo abdun habashiyun adoon habash ah kana ra'sahu zabiba madaxiisa aad moodo timaha baalka zabiibka oo gaar ay u kala fadhiyaan riwaayad xadiis kale Cirbaad Masaari wuxuu aswad oo madow nabiga alayhi salaam wuxuu ka hadlay qaayadu ka hadlay tusaalaha u bixinaya waxay ahayd qowmiyadii carabta ee uu la hadlay muslimka ahaa iyo dhaqankoodii ayaa wuxuu ka hadlayay
dadka sidaas waxaad ku soo barbaartay inaad diidaan laakiin hadduu madaxa noqdo xaqii madaxnimada iyo kala dambayntuu leeyahay inuu ummadda hoggaaniya madax u noqdana caqli iyo sharci midna uma diidayo ilaa la yidhaahdo in xilka loo siman yahay cid midab kasta iyo qowmiyad kasta aabana qaban karto waa ereygay taariikh galay ugu horreeyey in laga dambeeyo ciddii xil qabata muuqaalkay dooni iyo midabkay dooni ha lahaato laakiin haddii la yidhaahdo markii dhaga jiran ama mujtamaca jiran oo boogle uu xadiidkaa maqlaay ama qof wax badan dhibsanaya oo nugul uu maqlaay wuxuu dhihi karaa wuxuu u fahmi karaa nabiga calayi salatu wasalaam xabashi buu caayayey soomaalida waxay dhahaan xabashi markii hijradii u horreysay islaamkuna soo gaaray dabcan markii xadiidkaasi uu leeyahay cabdun xabashiyun ama laga hadlaya aswadu uu leeyahay dee afrikaanka madow oo dhan baa soo gelaya waqooyiga afrika in marka laga reebo dadka oo dhan baa soo gelaya mar kale nabigeena sal alla alay wasalam carabta dhexdiisa oo ka hadlaya markuu dajaal tilmaamaya saxaabaa la joogtay markaasuu wuxuu yidhi dajaal wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin tin adayga jacdu ra'si madaxiisa timihii waa adag yihiin riwaayana wuxuu leeyahay shaabun qatitun waa nin dhallinyaraa oo timihiisu ay adag yihiin aqrabu nnaasi bihi shabahan cabdulcuza bni qatin buu yidhi nin saxaabiya oo joogay wuxuu yidhi dadkana ninkanaa u eg ninka dajaal la yidhaahdo aan tilmaantaa ka bixiya nin buuran oo gaaban oo isha midigta ay caddahay ay soo taagan tahay oo timihiisu saa yihiin markuu ka bixiyey wuxuu yidhi cabdulcuza bni qatinkanaa ugu eg dadka ninkii rasuulka ekaanshihiisu miyo anigi diin ahaan ii dhibaya markaasuu yidhi maya xukuma dhimayo ninkiina uma qaadan nabigu inuu caayay nabiguna caay ugama jeedin dadku muuqaalka kore waa sidii ilahay u abuuro waxna kama bedeli kara laakiin muuqaalka gudaha iyo dhaqanka wanaagsan baad bedeli kartaayo dadka agtooda aad fiicnaan kartaa ama xumaan kartaa eleegsa fiicnaan kartaa ama xumaan kartaa haddaba xaalad waxay ahayd sawir yaalla sidii ibni qatin nabigu u tilmaamay inuu tilmaamaha ninkan isagu leeyahay siduu ugu tilmaamay cabdun xabashiyun ugu yidhi marka laga sheekaynaya tusaale la bixinayo dadkana xukun halka uu ka joogo islaamku la fahansiinayo tusaalaha la sheegay cay maaha ceebna maaha qofkuna inuu dhibsada maaha haddii aan kaloo laakiin waxaasoo dhan waan dhibsanaynaa nidhaahno nusuus badanoo hadda tusaaleeyo makale sharciga baynu maskax qallocsan ku wada akhriyi doonaa saas darteed anigu waxaan ka hadlahayey qofkaas sawir kale sida ay timihiisu yahayn bay ahaayeen waxaa kaloo rabaa intaanaan ku daro horta yaa la yidhaahdaa madow afrikada inta waqooyi maahane inta madoobay soomaaliya oo dhan ka mid tahay oon anugu ka mid ahay hadda riboodyada ka soo baxaya qowmiyadaha yurub u qaxay markii waddanba la qorayo black african communities waa la isku wada daraa etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya iyo tanzania iyo south africa ciidamo kala saarto black african community baa la yidhahdaa timo jareer maxaa la yidhaahdaa timo kastoon jiifin baa la yidhahdaa doctor cabdiraxmaan cabdallah cumar sheekh maaldhowta dhintay uu dhalay madiinana raggii ka baxay ahaaba waxaan isugu nimid madiina jaamacadda 1992 mise 3 bay markii ugu horeysay jamhuuriyadka Soofiyeedka arday laga keenay bay qol wada degay isaga ii sheekay wuxuu yiri timahaygan aan seexanaynin bay la yaabeen weligoodba wax madowna ma arag timaan seexanna ma arag markaas waxay dhaheen min fadlika jirkaaga ma taaban karnaa haabaan yiri saasay u xoqayaan in wasakh ka soo raacdo jirka madow nimanka waa yaabayeen timahaygay taabanayaan maxaa dhacayo timahan seexanaynin iska taagan maxay timaha adayga marka laga hadlayo Soomaaliya way timaha adagta marka laga reebo de qoysas ama caraba ama usul kale ka soo jeedo wili usuushoodii haysta haddana inaan qowmiyad ka hadlaynin ninkan hadda soo hadlay aniga raawogay way Soomaalidu marka guud ahaan dadka madoobay ka mid tahay dhammaanteen baa inta Soomaalida dadka tinta adag baan dhammaanteen ku wada jirnaa laakiin markan maqaamka nabiga laga hadlay sallallahu alayhi wasallam haddii aan iraahdo anoo intaas ka mid ah in sidaydaas oo kale nabiga lagu tilmaamo kufri iyo ceeb weeye anu ma iman muuqdo wax laga caroodo laakiin mar labaadaan gunaanadee waxaan isleeyahay hadalkaygii wax ama qowmiyad taabanaya ama qoys wax u dhimaya kuma jirin laakiin inna qalad bay u fahantay waxaa la dhihi karaa qayb waxaa ka in kas qalad ugu leexinays waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo ciddii qalad u fahantay ama qalad u dhisatay saasaan uga jeeday nusuustaa sharcigana sidaasay noo bartay inayn ceebayn iyo dhaleecayn ahayn midna markii tusaale ahaan looga sheekeynayo ama xaalad gaara la tilmaamayo laakiin cid kastoo dhibsata mar kale waxaan leeyahay raalli ha ahaadaan anna ugama jeedin